عمر عبدي ميداني دوميها دقمدا هدقالا شرماكا عمر شرماكا خيره iyo maareeyaha kuliyadda waxa kaloo aad ugu hambalyeynaya ardayda maanta ka qalin jabinaysa kuliyadda farsamada iyo xirfadaha ee dhaqaalaha waxaan leeyahay hambaliyo walaantii halkan wax badan oo idhaahday ma jiro gudoomiyaha gobolka ayaa hadal noo soo dhameeyay waxa quraatay inaan kelmadayna halkan fariinta ka gudbiyaan rabay waxay tahay inaad ogaatiin noloshan casriga ah ummadaha horumarkooda waxa aasaaska ah waa farsamada dadku waxay moodaan aqoontan akademiga in lagu horumaro laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxa lagu horumaraa farsamooyinka cidda ay farsamada ka taqaano ayay technology-ga dhinaceeda u socotaa saas darteed wadanka Japan la yiraahdo tusaale ahaan qarnigii 20aad dagaalkii labaad ee dunida dabadeed technology-ga waa laga horeeyay qaybo badan si uu soo gaaro waxa sabab u ah ardaygaasi PhD wuxuu ku diyaarinayay wadanada reer galbeedka wadan kamid ah laakiin ardaygaasi uu fikiro wuxuu arkay PhD inuu warqado qorqoro inay wadankiisa horumarkiisa ay waxba ka bedelaynin saas darteed wuxuu go'aansaday oo uu fiirsaday wadankayga inaan wax ka bedelaan rabaa madaxweynihii wadanka ayay wada xidhiidheen waxaa la isla gartay sirta horumarka Yurub maxay tahay baa la isweydiiyay waxaa la ogaaday inay sirta horumarka Yurub ay ku xidhan tahay matoorada shay kasta injiin iyo matoor ku socdaa Soomaa dawladda matoor samaysay waxay hananaysaa ilbaxnimo ardaygii marka PhD-ga diyaarinay intuu warqadihiisa iyo shahaadooyinkiisa halkaas ka dhigay buu geerish tagay nin buu tagay inaan ku shaqeeyaan rabaa buu ku yiri ninkii uu diiday intaasoo geerish buu maray ugu dambeyntii baa la aqbalay ninka kaliyaad wuxuu rabaa inuu xado mise uu helo aqoontaas sida matoor loo sameeyo wuxuu sameeyay waqtigiisii oo dhan wuxuu ku qaatay sidii uu horta u baran lahaa kow sida loo furfuro horta bartay loo furfuro iyo kolba u eeganay uu bartay matoorkii baa loo soo iibiyay guriga loo dhigay waxaa la yidhi waa inaad isku celcelisaa sidoo kolba meel uga dhacayay ayuu ugu dambeyntii isku celceliyay kadib waxaad barataa baa la yidhi waxyaabaha uu ka samaysan yahay matoorkani haddana waxyaabihii buu bartay madaxweynuhu wuxuu ku yidhi adiga oo matoor samaynaya maaha inaad soo noqoto maaha yarkiisii markii uu intii bartay uu tiina birihii iyo kooraankii iyo xadhkihii iyo wixii oo dhan si la isugu samaynay markuu bartay markii ugu horeysay wuxuu ku guulaystay inuu matoor sameeyo suugu celcelinayay wadanka wuxuu yimid isagoo matoor wada idan marka horumarka Japan maanta ay ku faanayso waxa asaas u ah yarka geerishka galay maanta Japan waa wadanada dunida ugu horeysa dhinacyo badan gaariga shirkadda gaariyada ugu horeysa adduunka ee Toyota la yiraahdo Japan baa soo saara wad garanaysaan ilbaxnimada way ugu horeysa wadanada ugu horeeyay ku jirta waxa ku aanatay waa maxay waxay dareentay sirtu inay tahay farsamada qofku markuu farsamo barto waa qof xirfad leh xirfadaada meel kasta la tagi wax kasta ku qabsan ummadaada ku bedeli waad ku bixin mid kale ogaada qofku markuu xirfad barto wuxuu ka kobcaa wax la yiraahdo mushaar qaadashada anaga inteedan managementiga iyo leadershipka iyo waxyaabo sociology waxaan bartay inta badan mushaar buu qaataa qofku laakiin maanta sida loo sameeyo ilbaabada iyo looxaanta iyo qofka markuu barto waxa laga yaabaa inta yar horeysa inaad shaqaale noqotid laakiin marka dambe waxaad furanaysaa meel ku gaar waxaan garanayaa yar dugsiga Al-Falaax ilbaabaduusa sameyn jiray guriga buu ahaa Anas baa loolan jiray maanta waa multi millionaire weyn yarkaas
مجرو إلى قدي إلى جيجيجا إلى يشنيلة إلى دردبا قندراسية ودم بقى قاطع وحي الباب اللي قليني أوردن وحولي أنت شركة وين بو سميس واحد سميس بيسكو هالكن مركا لكن حرفضاء كلا أنت بدن وحي كوها كان ناد مشار قادت لكن وحي كوها كيسا وكو ودن كاغن وادكو رومرنيسا والله بعديكونا طريقي هضنتني ماذا آياتكو قادسا marka waxaan dhalinyarta in badan ku waaninayna iyadoo waliba ogsoonahay siyaasadda wadanku uu qaatay inay tahay 70% maadaama oo industry transformation in la sameeyo la rabo wadanku wuxuu u jeestay ardayda dugsiyada 12aadka iyo 10aadka ka baxaya 70% in farsamada gacanta loo leeyo 70% ardayda dugsiyada ka soo baxaysay waxay gali doonaani وفرسمادا maxaa yeelay wadanku warshaduhu jeestay xafiis looma baahna dadka shaqeeya saadarteed aad baan igu dheerigelinayaa jiilka cusub ee soo koraya idinkuna inaan halka ku joojine aadimadiina kubcisaan xirfadiina biirisaan shahaadooyinkiina biirisaan tababaradiina biirisaan halka qof ee wax bartay intaas oo qof uu sii baro ayaan igu dheerigelinayaa waxaan leeyahay hambaliyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh